السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتا شرفتا له كحران سمتو أكاديمي وين سلامي ميلو با جوجتان هابين وناكسن هدي هابين كوتاي مالو وناكسن هدي مالو كوتاي muuqaal kan waxaa rabaa inaan maaragtay isla maaragtay aan ku falanqeeyo lacagta ama currency-ga XAU USD oo ah lacagta maaragtay gold. marka gold waa lacagta maaragtay waxaa waaye ugu dhaqaaqa fiican markii la dhaho forex markii la joogo ama currencies trading, sababtoo ah lacagta dahabka sababta ay ugu dhaqaaq badan tahay lacagaha kale waxaa waaye number one waa lacagta ugu badan oo maaragtay dadka ay maal gashtaan, waana lacagta ugu badan oo dadka ay ka baayac mushtaraan. markaan saas leeyahay waxaan ka wadaa gold ama dahabka wuxuu ka mid yahay yacni assetska siiba metaliska maxaa la dhahaa kuwada maaragtay soo jireenka oo muddo qarniyo ayuu maaragtay soo isticmaali jiray ama uu soo socday. marka haddii aan u guda galno marka falanqeynteena marka waxaan ka soo bilaabeynaa maxaa la dhahay higher time frame-ka ama HTF wax la dhahay. the reason waxaa waaye markaa rabti inaad wax analyze garaysid waa inaad hesho yacni xog ku saabsan waxa aad falanqeynaysid muxuu ahaay sidee ahaay performance-geeda ama overtime muddo see wax ahaayeen, ma fahantay? marka sababtoo ah waxa kaliya oo hadda ma aragtay oo analyze-keena aan ku sameyn karno waa inaan maaragtay aan falanqeyno lacagta in the past history wixii ay sameysay, kadibna anagoo taas ka qiyaas qaadanayno inaan markaasi u dirsano waxa isbedelada dhici kara, ma fahantay? okay, marka hadda lacagtan XAU USD sida ujeedaan qiimaheeda hadda wuxuu marayaa 2334 ayuu marayaa, macnaa barayska halkaas ayuu marayaa. waana waxaad dareemaysaa in yacni dahabka uu ku socdo maaragtay xawli uu ku socdo, qiimihiisana uu kordhayo marba marka dambeysa long term. sababta aan saas u leeyahay waxaa waaye haddii aan tagno waxaa la dhahaye 1 month chartiga aan dhahay 1 year-ka aad tagno waxaa markaasi arki kartaa lacagta dahabka in yacni ay ku socoto koritaankeeda uu yahay mid exponential ah ama maaragtay direction oo dhanka maaragtay kor ah oo toos ah. haddii marka aan fiirino waxaa la dhahaye 71kii laga soo bilaabo 1973 waa meesha uu ka bilaabanayo maxaa la dhahaye barayska yacni lacagtan. marka 72gii wuxuu maraya barayska 6.7 ayuu marayay, weliba -6.7 ayuu marayay soo u soo socday. maantana wuxuu marayaa yacni 2000 ka badan. marka meeshaas waxaa ka muuqata inuu dahabka yacni ku socdo qiimihiisa xawli, weliba uu socdo dhanka kore. marka maxaa marka aniga ma aragtay meesha maxay nooga dhigan tahay? waxay nooga dhigan tahay dahabka mustaqbalkiisa guud inuu yahay horta buy, oo taa yacni khubarada dhaqaalaha kulligood waa isku raacsan yihiin.
okay marka anagu hadda marka maxaa la dhahaye midaasi nama quseyso oo laakiinse macno ayay noo sameynaysaa. macnaha noo sameynaysa waxaa waaye inaan ogaano jihada guud. laakiin maadaama aan nahay maxaa la dhahaye retail traders ah, maxaa la dhahaye oo aan nahana baayac mushtar oo yacni suuqan buy ama sell oo aan ahayn investors, maxaa la dhahaye waxaa markaasi habboon inaan ma aragtay aan dib u fiirino, aan dib ugu noqono lower time frame-ka maadaama ka baayac mushtareyno. qofkii yacni rabo inuu maal gashto oo investment iyo long term oo rabo ma aragtay qasnadiisa waxa ku jiro inuu ma aragtay maxaa la dhahaye oo sameeyo long term investment, waxaa fiican inuu dahabka iibsado oo meel iska keedsado oo ma aragtay uu ka aamuso muddo inta ma aragtay. waxaa hubaal ah dhowr sano kadib inuu qiimaha kor u kacayo oo ma aragtay sare u kacayo 5 sano 10 sano meelahaas kadib. waa investmentiga. hase ahaatee maadaama anaga aanu ahayn investors, muxuu ahaay waxaan markaasi imaanaynaa time frame-ka kuwa ugu hooseeya sida dayliga iyo meelahaas. waayo anaga dahabka ma iibsanayno oo ma haynayno. anaga marka waxaa laga yaabaa inaan dahabka mar iibsano mar aan iska gadno buy ama sell depending ay ku xiran tahay maaragtay market conditionska. waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano fluctuationska uu sameynayo dahabka. long termna yacni waxaa yacni waxaa dhahay waa kor ama buy waaye qofkii long term. ma fahantay? marka waxaa imaanaynaa maxaa la dhahayey dib waxaa ugu soo noqonaynaa weekly ayaa dib ugu soo noqonaynaa si aan u helno maxaa la dhahayey xogta xogaha dhow sida maxaa la dhahayey 3 sano ama maxaa la dhahaye 2 sano ugu dambeysay waxa uu dahabka ama historyga ama waxyaabaha uu sameynayay saa maaragtay u helno. okay sida ujeedaan hadda key points ayaa meelaha nooga muuqda. marka key pointska ayaa calaamadaysanayna. key pointska waxaa waaye highgan inaan maaragtay line dul saarano, sidoo kale lowgan aan saarano maxaa la dhahaye asigana line kale inaan dul dhigno. ma fahantay? ma fahantay? sidoo kale highga oo hadda qiimaha maaragtay oo marayana wax inaan ayana dul dhigno maxaa la dhahaye line kale inaan dul dhigno ayadana waa very important waaye. key areas inaa calaamadaysid. marka sababtoo ah key levelskan calaamadaysanaysa waxaa waaye waa meelo ay u badan tahay in oo levels ay u badan tahay inuu qiimaha markaasi uu ku dhex maaragtay dabaasho ay u badan tahay. that's why marka levelskan aan u calaamadsanayna waana very important waa. okay marka hadda waxaan u calaamadsan key levelskii. next waxaan maaragtay u gudbaynaa maxaa la dhahaye sida ujeedaan levelkan markuu qiimaha marayay oo ku beegan yacni levelkan oo yacni August 2020 thisna waxaa waa 23 maxaa la dhahaye 1 May adiga waa hal sano wax yar dhiman. waxaa ujeedaa inuu qiimaha yacni dib oo yacni levelkaas oo u respect gareeyay ayaa dareemaysaa. okay haddana sidoo kale meeshaan waxaad jeedaa in maaragtay oo mar kale December 2023 oo mar kale yimid qiimaha oo na dhaafi waaye. hase ahaatee waxay wax walba isbedeleen Monday February 2024 ayuu qiimaha yacni levelkaas uu ixtiraamayay uu jabiyey isku markaasna uu wuxuu aaday dhankaas iyo maxaa la dhahaye meesha uu hadda marayo oo sii jihaystay. ma fahantay? okay marka halkaas marayso
yacni waxaan sameynaynaa maxaa la dhahay hadda kandhal oo yacni seel ah ayaa kandhalka naftarkiisa awood badan ma laha kandhalka seelka ah sidaa u jeedaan sababtoo ah 50% waa la liqay ma fahante 50% waa la liqay waxaana u moodaa in markaasi salariska dib loo riixayo oo yacni hoggaanka ama maxaa la dhahay buyerska ay weli maaragtay marketka ay ku xoog badan yihiin waa marka aaggan aad iyo aad dagaal xoog laha ka socdo meeshan aadaa lagu dagaalamayaa muxuu ahaay waa aag oo halis ah dagaal ba-an baa halkan ka socda sida maaragtay u jeedaan qaybta kuwa salariska ayaa waxay isku dayeen inay maaragtay suuqa maaragtay hoos u soo wadaan balse waxaa laga sameeyey overpower waxaa la dhahaya dhacay oo ah in laga awood badiyey taasna waxaa noo caddeynaya kandhalkan oo 50% almost 45 ama 50% waa la liqay oo hadda waxaa u malaysaa salarisk inay sameynayaan dib u gurasho inay sameynayaan ayaa u moodaa marka haddii aan waxaa firinaynaa marka daily time frameka ayaa imaanaynaa isigana si ay maaragtay waxyaabaha informationka ayadana ay si fiican wax walba noogu caddaadaan si clear ah u aragno salariska marka imaana dailyga waxaa arkaynaa salariska qaabkay wax u wadaan hadday halkan dhal ayaa markaasi inoo muuqda oo sel ah hase ahaatee hadda si clear u aragnaa oo waxaa muuqata in kan dhal baay ah oo imaaday oo yani correction yar oo suuqa uu sameynayo correctionkaas marka waxaa laga yaabaa inuu maaragtay kor gaaro sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu hoos micna levelkan oo imaado marka meesha marka fursad oo maxaa la dhahay buy sell ah waa ka muuqataa haddii la dhaho fursad oo maxaa la dhahay waxaa laga helayaa afirino oo buy ah yani yes yani fursad oo fiican oo sell ahna waa ka muuqataa fursad buy ahna waa laga heli karaa oo suuquna kor u sii socdo ayaa dhici karta marka sidoo kale falanqeyntaada waa inay maaragtay maxaa la dhahay fiirisid maxaa la dhahay waxaa jiro lacago kale oo ay saameeyaana jiro dahabka tusaale ahaan euro USD oo kale iyo lacagaha dhan all currencies-ka ay raacsan yihiin USD maxaa la dhahay correlation ayaa ka dhexeyn kara inkastoo yacni correlationiska sidaa jeclahay euro USD iyo XA USD correlation ka dhexeeyo maadaama ay wadaagaan maxaa la dhahay same pair oo ah USD ay wadaagaan correlation ka dhexeeya marka tradekan fursad fiican ka banaan suuqa wax oo maaragtay hadda consolidation dagaal iyo inta ka jiro kadib maxaa la dhahay isniinta soo socota insha Allah waxaa la rajeynayaa in maaragtay meel maaragtay la aado oo maxaa la dhahay ama buyerska ama sellerska marka insha Allah isku tasho number 1 waxa ku ahaado risk management inaad samaysid oo ah inaad riskiga manage karaysid ma fahanteen suuqa marka fursad way ka buuxdaa fursad way taalaa kor iyo hoosba fursada ka banaan waa maxaa la dhahay waa opportunity badanaa ka jirta balse waxaa la rabaa opportunitygaas inaa ma aragtay ay ku wajahdo muxuu ahaay qaab maaragtay taxadar ah waa inaa maaragtay ku hubeysan tahay dhammaan qalabkaagii waa inaa maaragtay stop losskaagii waxaagii lodka ku galaysid wax walba inay maaragtay ku control yihiin oo aad la socotaa fiican sababtoo tahay lacagtan movekeeda lacagaha kale uu ka duwan yahay waxaa laga yaabaa lacagaha euro USD markay dhaqaaq sameynayaan halkii bib
halkii yacni maxaa la dhahay dhaqaaq ay sameeyaan inay hal bib camal ay noqoto. laakiin maxaa la dhahay dahabka ama USD meesha lacagaha kale hal bib camal ay ka dhaqaaqayaan halkii mar, ayada waxaa laga yaabaa 5 bib 10 bib inay dhaqaaqdo. marka that's why aan leeyahay marka risk managementigaaga maaragta ku ahaado key oo maaragtay difaacaaga adkeyso. kadib adoo difaacaaga adkeystay insha allahu tacaala saas suuq u gal. aad u mahadsantihiin insha allah.